waxaa weli si rasmi ah uga sii socoto gobolada Awdal iyo Salal diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaana maanta kormeer indheendheena ku yimid magaalada Looyacdo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe isagoo kormeer indheendheena ku soo maray goobaha diiwaangelinta codbixiyayaasha dhinaca kale waxaa dad aad u tiro badan ay ka soo qulqulayaan wadanka Nujaarkana ee Djibouti kormeerkan uu ku yimid magaalada Looyacdo gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu ku soo indheendheenay sida uga socotay diiwaangelinta codbixiyayaasha magaalada Looyacdo isagoo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu baaq u diray guddiga komishanka qaranka isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri soo siyaartay goobtan Looyacdo diiwaangelinta guud ahaan si fiican bay u socotaa wanaagsan laakiin waxa jira dhalinyaro badan baa jira oo baahan in lagu feeyo koow waxa weeye meeshu waa xad magaalo aad u camirna ay ku jiro ka qaadato 7 kilomitir jirto dadkuna aad iyo aad u haween magaalada saayeen u isdiiwaangeliyo marka waxa yaala meesha ilaa afar kid baa yaala halkan afartaa kid waxa weeye qaar baa markii shaqada kale way kulaaleen way istaageen waxa loo baahan yahay in backup loo sameeyo kids microphone in case ay noqdaan loo sameeyo loo baahan yahay qalabada waxa weeye waxa ku soo fatahay dad badan maantii la ku yiraahdo qolba imanaya qaar way seexanaya habeenkii waxa weeye booliiska control nidaamka laba qof oo qora ayaa u soo tala gasheen laba qof oo control ka meel border waxay in ciidamada halkan joogay booliiska Looyacdo jooga saldhiga iyagana hawlgelisaan una yar siisaan intay maalintaas intay shaqeynayaan waxa shaqeynayaan 14 maalmood shaqeynayaan laba week in at least $20 siisaan baheed si iyaguna uga hawlgalaan laakiin laba askari oo 24 hours shaqeynaya wax caqli gala maaha marka waxaan leeyahay commissionka waa inay co backup keenaan marka inta hadhay way ku hadhay ay keen booliiskana hawlgeliyaan laba qof oo booliisi way daaleen waa soo sameeyeen caqliga ma gasho magaalo weyn oo caasimad ah oo dadka soo jabiyo oo hayaan niir hayaan in laba askari umada kala celiso xalayta 400 baa seexday saar 600 baa soo gaaray cusub saasi meesha uu buuxda marka waxaan leenahay hala soo tayeeyo hala soo kordhiyo booliiska hala soo kordhiyo qalabka hala soo kordhiyo wax backup oo hadii xumaato Kenya ana saay bedeli halkan leenahay sida kale aad u fiican nidaamka isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ee gobolka Salal isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri waraaqa codbixintu si fiican bay u socdaan imika waxay socdaan muddo 14 cisho maanta oo dambaysa welina dadkii waliga arkaya waxa weeyaan kuyugi ma kala goon halka ay Djibouti dhinac walba dadku way ka soo qulqulayaan marka waxaan codsanaynaa in loo kordhiyo dadka muddada si ay dhamaantood u helaan warqadda codbixinta inay helaan waa Cali Axmed Yiriye Cali Degadalool TV-ga caalamiga Star TV magaalada Looyacdo